dowlad goboleedyo madasha hogaamiyaasha baarlamaankii taagana madaxweynihii ra'iisul wasaarihi iyo naga raaceen ma maanta waxaan sugaynaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay beesha caalamka wax ku soo heshiiyaan miyaan sugaynaa maroodi xoogiisa ilaahay ka qariyaa tihiin ama waxaa tihiin loo har aan weli dib dambe la isu weydiinayn maanta talada idinkay gacantiina taalla waxaadna ku dhaarateen sida danta dalka iyo dadka ku jirto magaca ilaahay aadna u marteen waadna ogtihiin cirka iyo dhulka haddii la isku dhajiyo inaanay doorasho dhicin inaan jinsiyad jirin yaa Soomaali ah inaan tirakoob jirin inaan xisbiyo sharciyeysan jirin inaan dowlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormarin sharci aydan u samaynin nidaamka federaalka iyo nooca la qaadanayo aydan ka hadlin waa ognahay inaan xuduudihii Soomaaliya iyo aysan noo qornayn waan ognahay inaan amni ka jirin dalka guud ahaan jamhuuriyadda loo yacade ilaa Ras Kamboni waan ognahay inaan dastuurkaas afti dadweyne uusan gelin hal cod iyo hal qof saas daraadeed ma dhici karo mar hadduusan dhici karin wixii dalka u dhacaya waa inaad u samaysaan fiiri dowladdii imbigaaka lagu soo dhisay charterkay ku qornayd ra'iisul wasaare cali maxamed geedi 2 sano iyo bar iskama dhicin wuxuu ku dhacay charterka waxa ku qornaa nidaamka federaalka inuu dalka uga hergeliyo xukuumaddaas 2 sano iyo bar hadday ka hergelin weyso xukuumadda ku xigto ayaa 1 sano iska leh ma waxaynaan qori karin inaan dhahno dalka 5 sano ee soo socota new roadmap new accord muqdisho accord waxaan rabnaa aan ugu magac darno ayay noqonaysaa amniga intaas lagu sugaa federaalka intaas lagu sameeyna tirakoob intaana lagu sameeyna waxa la leeyahay adduunka qaarkiis waxa ka dhacay iyadoon tirakoob jirna doorasho ka dhacday adduunka doorashada ka dhacday miyaa la mid ah kursiga yaala Kismaayo miyaa la iska yeelayaa in Daynila ama howlwadaag lagu doorto kursiga Hirshabeelle miyaa la iska yeelayaa in Kaaraan lagu doorto rotation wax lagu dooranayo miyaa jira miyaan tagi karnaa meelihii aan ka nimid anigu 5 jeer baan joohar baan kursigaygu yaala 5 jeer aan tagay waxaan tagay ergadii markii la xulaayay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tagay baarlamaankii markii la xulaayay markii baarlamaanka la dooranayo gudoomiyaha Jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo 6 jeer bay ahayd 6 jeer halkaas maroon gudoomiye Jawaari safarka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle aan u raacay marka laga reebo diiwaan gelintii aan tagay marka ergada tagaysay aan soo fiiriyay marka aniga aan registration fee aan bixinayaan tagay iyo markaan codka doonanay shantaba joohar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa joohar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo oday ugaasnaan raadiye waxa la rabaa runta iyo ilkaha waa la cadeeyaa kitaabka aan marteen inaad ka dhabaysaan maanta inteenaas horta aniga nabadii nolol automatically waa ka tirsanahayo waa hal ku dhagay xisbi maaha waayo wasiir xukuumadda ka tirsanaa dhinac kala ah wasiir xukuumadda ka tirsan marka aan ahay xildhibaannimadeeduna waa ii gaar marka nabadii nolol xisbi maaha xisbi fulaan iyo nabadii nolol maanta xagga dhiga mucaaridi xagga dhiga wala idinku kala qaybinaya 276 baan nahay waxaana weheliye 54 intaas saaran tahay dalka meeshii laga aadi lahaa maalin dhaweyd waxaan arkayay xildhibaano iyo senataro dhahaya madaxweynaha waxaan ka rabnaa meesha la aadayo oday baa waxaa la yiri duubweyna la dhahaa duubweyne wuxuu madaxa ku watay duub Soomaalida dhaqankeedu waa taqaanaan sahay lama qaadan jirin safar maalmo iyo habeenana waa la soo socon jiray odaygii duubweynaha ahaa baa wuxuu tagay reer buu ku weyday habeenkii waa la soo dhaweeyay waa la sooray markii la sooray waxaa loo diray wuxuu sheegay meesha uu socdo way garanayaan waxay ahayd meel uu habeenka lagu sii hoyanayo waa la baxay habeenkii subaxina waa la sagootiyay waxa la ogyahay meesha uu sii socdo caawa inuu hoyanayo masaafada ay isu jirto meesha uu ka tagay iyo meesha uu hoyanayo kala bar
meeshuu ka soo tegay meeshii kale markay marayaan ayuu wuxuu soo xasuustay koofidii duubka ahayd awgi inuu ka soo tegay asoonba fiirin gadaal ugu soo noqday meeshuu saaka ka soo baxo caawi tegay war maxaa kugu dhacay ma nabad qabtaa maxaa ku helay mayo duubkiyaan ka soo tegay yiri waxaa la yidhi oo ma laba duubaa wadatay maya hal duubaan wato yiri ya oo kan madaxa kuu saaran markaasuu ogaan xildhibaanada iyo sanatarada inta madaxweynaha la kulmaan ama ra'iisul wasaaraha la kulmo intee loo socdaa dhahaya ayagana gacanta ku haya soo maaha dadka duubka raadinaya waxaan rabnaa marka maantay taagan tahay waxaa la rabaa talo iyo arrin dhaba mudana guddoomiye waa soo gunaanada hadalkayga waxaan rabaa in lagu soo gunaanado waxaan rabnaa talo aan meel ku saarno guddi madax bannaan oo baarlamaanka awooddiisa raba inuu maroorsado talo aan meel ku saarno ummadda waxa u danka ah talo aan nala ka sugayaa annagoo ah golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saasaa aqalka sarana nagu raaci doona haddii allaha awoodda leh ogolaado wuxuu yidhi allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye talaa maanta ii dana talo duug ka hari karo oo dalabta lagu soxo dala aan lahayn dulin talo aan la duri karin talo aan lahayn dulin talo aan la duri karin nabadoonka beeshii raacagtada dulsaar ku ah talaa maanta ii dana maanta idinkaa laydinka fadhiyaa muddo kororsi horey u dhacday duruufta hadday keento waa la kororsanaya meel la aada haddii la waayo waa la kordhinaya dadka miyaan isku wada shaatinahay isku wada shaati mani horaan waxaa maqlan jira shaatiyaalaha la isla tasho isla tolan mayna waa kala tolanaynaa haddayba loo kala togolo